faa'iidada ku jirta qur-aanka dhagaysigiisa markaad seexanaysid weeye qodobka kan ee aynan la wadaagayno walaalayaal. qur-aanka kariimka waa kitaabkii rabbigeen, dariiqaan u maraynana waa dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. qur-aanku wuxuu ahaa mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, mucjisooyinkii la siiyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam tan ugu weyn ee ugu horraysa wey. waxaana nebi maxamed qur-aanka loogu soo dejiyey si muuminiinta uu hanuun ugu noqdo, qofka doonaya waddada xaqa ahna u tuso. qur-aankaas maanta musxafka ku qoran waa sida ilaahay u soo dejiyey, cidi wax kuma darin, cidna waxba kama jarin. kutubta ilaahay soo dejiyey kii ugu dambeeye lagu afxiray weeye. dhinaca kale weeye ilaahay baa kafaalo qaaday inuu xifdinayo, lama soo dhexgelin karo khalad xagga macnaha iyo xagga erayga ah. waa ogtihiin aayadihii ugu horreeyey ee ilaahay soo dejiyey inay ahaayeen iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa al-insaana min calaq, iqra warabuka alakram. aayadihii ugu horreeyey weeye ee nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam, isagoo loogu soo dhiibay jibriil calayhi salaam godkii qaaru xiraa isagoo ku jira nebiga sala allahu calayhi wasalam. aayaddii ugu dambaysay soo degtana waxaa lagu tiriyaa inay tahay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah, suuratulbaqaray ka tirsanta. waa ogtiin qur-aanka kariimka wuxuu ka kooban yahay 30 qaybood, yacni xirmo. 30kaasna waxay u qaybsamaan 114 suuradood sidaad la wada socotaan. qofkii qabsada adduunkana ma dhumayo, aakhirana ma nasiib xumaanayo. waxaa keliya aan isku xasuusinayna kelmadda tan waxaa weeye walaalayaal, markaad seexanaysid haddaad qur-aanka dhegaysatid faa'iidooyin intee la-eg ayaa kuugu jiri kara. horta marka hore hoosta ka xariiq, dhegaysiga qur-aanka intaada seexan ka hor waa arrin kuu muhiima. dad badanna waa sameeyaan oo muslimiinta ka mid ah, waayo fawaa'id aad u tiro badan ayuu nolosheenna ku leeyahay dhegaysiga qur-aanka intaada seexan. faa'iidooyinka waxaa ka mid ah, insha allahu tacaala waxaa laga yaabaa in ay kuu soo noqoto waxyaalihii aad hilmaantay maantay iyo intii ka horraysay hurdadaadaas xasuustoodii. waayo xagga xasuusta iyo shayga inaad si fiican u fahamtid ayuu kuu xoojinayaa. in badanoo cudurrada ka midana ilaahay waa kaaga caafimaadinayaa ama wuu kaaga difaacayaa. intaada seexan dhegaysa qur-aanka, dhafoor xanuunka iyo hargebka iyo waxyaalahaasoo dhan rabbi waa kaaga caafimaadinayaa tabaaraka wa tacaala. bal waxaa la sheegaa xitaa cudurrada halista ah ee maanta adduunyada la leeyahay daawo rasmi oo cirib tirta waa la waayay, sida kansarka ayaa ilaahay idinkiis ilaahay kaaga difaacaya tabaaraka wa tacaala. qayb weyn buuna ka ciyaarayaa qur-aanka markaad dhegaysanaysid hurdadaada ka hor in naftaadu ay nadiif noqoto, dhaqankaadana uu tooso, sida dadka kale oola dhaqmaysid ama oola hadlaysid ayaa toosaya oo wanaagsanaanaya. arrintaasna waxay kaa saacidaysaa, kaa taageeraysaa inaad heshid dadka kalsoonidooda. xidhiirka dadka kaala dhexeeya sida wanaagsanna ood u xidhiiraysaanna ayaa sii xoogoobaya, waana lagu aaminayaa insha allah. qofka qur-aanka dhegaysta hurdada ka hor wuxuu dareemayaa raaxo dhinaca nafta ah, waxaana hoos ku dhacaya wax kasta oo uu dareemayo oo ku saabsan xagga walwalka iyo wahsiga. caqligaada si fiican inaad u xukuntid ayaa kuu siyaadaysa. go-aamo wanaagsan oo aad mahadisid inaad qaadatid ayuu kaa taageeraya, taasoo ku gaarsiinaysa si wanaagsan inaad ugu guulaysatid shayga aad raadinaysid. shakhsiyaddaada ayaa xoogoobaysa oo awood yeelanaysa. qof waxaas ay kalsooni isku qaba, dadkana kalsooni ku qabaan. waxaad kaloo noqonaysaa qof shaqada uu qabanayo lagu hubo inuu ka soo baxayo, si wanaagsanna u sugayo. waa dhegaysiga qur-aanka intaada seexan faa'iidooyinka aad ka helaysid. jasaakum allahu khayran.